السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخيات شرفت اللهم من والباد دنيا كجوكتان waxaan idin rajaynayaa caafimaad qab bashbash barwaaqi horumar iyo caafimaad aan la soo koobi karin inaad ku sugnaataan barnaamijkan maanta idin hayo waa qaybta caafimaadka aad iyo aad ayuu muhiim u yahay wax weyn aad ka faa'iidi doontaan haddii Allah awood leh uu yiraahdo haddaba muxuu yahay biyaha qumbaha caafimaad aad iyo aad u muhiim ah buu leeyahay waxaan ku soo qaadan doonaa 4 arrimood ay qabtaan qumbaha haddaan midda koowaad ku bilaabo biyaha qumbaha faa'iidada ay leedahay keliyaha buu sifeeyaa ka ilaaliyaa dhagaxaha keliyaha inta badan fadhiisto oo qofka ku abuurmo bay jijibisaa oo xalisaa ay nadiifisaa midda labaad biyaha qumbaha uu qofka ka caawiyo waxa weeyaan cayilka buurnida wuu jaraa la dagaalamaa qofka wuxuu ka dhigaa cayilka ayuu ka burburiyaa wuxuuna ka dhigaa qof dhuuban aan cayil lahayn aad u qurux badan hilibkana wuu ka ridaa midda saddexaad oo ayadana aad iyo aad u muhiimsan ay tahay in lagu baraarugo waxay tahay jirka qurux wuu ka dhigaa nafaqo buu siiyaa wuu adkeeyaa lafaha midda afaraad oo ayadana aad iyo aad u muhiimsan waxay tahay dadka subagga iyo dufanta qaba wuu ka daaweeyaa oo wuu ka ilaaliyaa taasi waxaan ula jeedaa dad waxaa jirto dufanta iyo subagga ay aad jirkiisa u dhibto xanuunana u keento laakiin biyaha qumbaha daawuu u yahay waa uu ka bogsiyaa wuu ka burburiyaa wuu la dagaalamaa arrinkaasi haddaba 4taasi arrimood haddaan ku dadaalno wax weyn baa qofka caafimaadkiisa ku soo kordhaya waa hubaal waxaan idinka codsanayaa khiyaarta sharafta lahow meel walba aad dunida ka joogtaan inaad shareka iyo like iyo subscribe-ka aad igu deeqdaan si ay dhiirgelin igu noqoto barnaamijyo tayo leh oo waxtar fiican leh aan idinku soo gudbiyo haddii Allah awood leh uu yiraahdo waa huwaal barnaamijyada caafimaadka aan idin soo diyaariyo waa barnaamijyo la arkay la tijaabiyay itusi taabsi wax la yiraahdo natiijadeeda fadlan 4taasi arrimood haddaad doonto xalkoodii ku dadaal inaad qumbaha soo gadato biyihiisi aad isticmaasho oo aad cabto haddii Allah awood la yiraahdo xanuunada aan soo sheego oo dhan daaway u yihiin cayilka ayaa ka mid ah dufanta sidoo kale keliyaha dhagaxyada fadhiistaan way xalisaa jirkan aad bay u qurxisaa haddaba arrimahaasi qof walba uu xiiseenayo oo naga mid ah aan ku dadaalno inaad biyaha qumbaha aad u cabno oo aan isticmaalno haddii Allah awood leh uu yiraahdo si aan caafimaad tiro badan jirkeenu uu u helo dhakhtar iyo isbitaal waan ka maarmi doonaa haddaan isticmaalno daawooyinka dabiiciga ah oo suuqyada yaalo oo cunnada ah ee mar walba aan isticmaalno balse laakiin sida saxda ah loogu talagalay in loo isticmaalo inta barnaamij lamid aan ku wada kulmi doono waxa idin kaga tagay khayr iyo bashbash iyo barwaaqo salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh